reer TikTok واللي wadcibowdeen gabdhihiinina waa idinka baxsan laayihiin Soomaha waa waxaan idinkaga digayay maalin walba ilaahay wuxuu leeyahay innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina aamanu lahum adhabun aliim fi dunya wal aakhirah kuwa jacel inay xumi ku dhexfidiyaan dadka dhexdooda kuwa walaalahood ceebeynaya gabdhaha sharafkooda ku dhacaya ku been abuuranaya jirkoodii gabdhihii asturna ilaahay asturay cafiifaadka ahaa jirkoodii qaawan banaanka soo dhigaya isku rakibaya kuwa iyaga ay aanan xishoonaynin ilaahay ka furtay shayaatiinul insi wal jinniga ilaahay wuxuu leeyahay adduunkana waanu ku cadaabaynaa آخرنا عذابك وين بانو قلنا ورمش لقاقي إيماني ما قرنسا حتى يقعموكو أنجان إنها إلهي كاريدو لقاح أوكو بيل ودنها أوكو استاجيو كنكر إبلاي حتى يكون عذاك ورن وركحي الشهودة قبلها قيمي قبضا الله يذن بركي شيخ خير الله سيه كاسي وحو وحا إن شيخياو وكمد علماء الصومالية روحانتي وحا وشرحات دير كبحية دنبيق لقا دحلي كرا إن قف صومالية مثل ولاشا أو قبره إن أد كفافيسو إن حمان اسكونا ضيد إن بلشدة عاد أصوبة دكتو وحيالة فضيحة أديقو إسلامر كان الرادينية وحاد وليتا أو كليا كومنتي وحيالة عينكا وحا وقدر دار ميدن بيقى إنتا لاقي قفكاسي وحن بارسن كر ولو قفكا وقلد أما خضع كريع كر حتى هدي أي عيدو أي قشو ماهن إن عيبها عاد دبقشو شخصي والبواحة وليهاي عيبا أسيقا وقارا وقف إن دون كان عيب لهين مجرتو هدي أي وحكا صوفا كذان أما وحي كدعان قفا سيدا شيقا وينوشيق ماهن إن دبقشو وعاد راديسو وعاد قد سي عددكا سي وصوبا نكتو شيكاية كالكتانا وحيالا أي اسكم مدداليان أو أي فلنقيان نهانتي برها بلشدة قبادة كلا دوان قارعان فيسبوك وحاذا ونقطي كوان دادكا إن مقع عليه لغو محكمة دايو سي بالوالبول قف لغو سوقاتو أو لغو اكتان جدو إن قف كاسي لغو فلنقيا إسلامر كاسنا حمان مدي ugu in lala kulmo oo ay ugu magac dareen qolooyinka wax falanqeeya kuwaasi kamid ah han fresh ay dhahaan han fresh baan haynaa iyo kida wakida ay hadal kale ka fikiraan aakhiradoodii dhamaan sumcada qofkaasi wax u dhima karto waxyeelada guud ee soo wajihi karto qofkaasi sidoo uu xumaan karo waa ogaanay dadka qaar hadii hadal yar la dhahay inay ka caroodaan marka ma ahan in qof hadana gabarsi ah oo Soomaaliyeed in aad fadeexadeeda ka taliso hormuud aad u noqoto عيبينتنا تاسي وواحد وليدته ودنبي أدو بحسنا وآخر الدنيا أنت بعدك كاسو بحيان أو إلهي وصل ذا وحكى له هذه كوين يعيبك لتو أتقضه يعني قد خيانها قدنا يعني كل عدون تنمو قفل بشخص والبوقف وقفاء ما دبعتي وحين أقول هني إن نفسك عين كاسي وجه دون واتأدو بحسنتها وقفك شخصي أهان كسو بحكرت وحيالها وجست مع دام قفلان عاد عيبيس أدينا عيبت هذا أيا إن صائف بحيس ونفسي هسي وحنا قناة ميت سامين جود كويشت وكاسو بح دام قف مسلم عاد دبعت وجستي وعاد بحسن marka sheekh wuxuu kaga digay dhamaan umada Soomaaliyeed in iska daayaan gaar ahaan ragga dhalinyarada ah waliba si qaas ahaan ay ugu digay in waxyaalaha propagandada hadda jeer ay ka soo jeediyaan baraha bulshada ayagoo aflagaado iyo waxyaalaha aan loo meeldayn u geysto dad maaragtay gabdho walaalahood ah in arintaas ay waxa aad u xun falxuma aakhiri adduunyada ay tahay dhibaato aad u baxsan oo soo gaari doonto waxa uu kaga digay kuna soo celceliyay culamo Soomaaliyeed tiro badan kaliya ma ahan waxay sheegeen in arrimahaasi ay yihiin waxyaalo falxuma oo laga xumaado run ahaantii gabi ahaantoodba janalka Duxa Media ayaa idin socodsiinay idin ahaantiin waxa idin leeyahay janalkan haddii aad ku cusubtiin fadlan subscribe like share comment inta badaha waad ku mahadsantiin daawashada aad na daawateen waxa idin leenahay barnaamij kale ayaan idin soo gudbinayna taasi ayaan idin ku soo dhawaynaa